السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبرنامجكني ما ogtahay qaybtiisii lixaad. ma ogtahay in socdaalkii ugu dheeraa ee nebi galo inuu galay nebi maxamed sallallahu calayhi wasallam waxa uu habeen qura ka socdaalay Maka waxaanuu tagay Qudus halkaas oo uga sii gudbay samada toddobaad waana habeenkuu Ilaahay ummadda Islaamka ku soo waajibiyay salaadaha shanta ah waana habeenka Laylatul Israa wal Mi'raaj. ma ogtahay in ururka Xamaas ee mujaahidiinta reer Falastiin uu aasaasay Sheekh Axmed Yaasiin oo ahaa sheekh kacaana dalka mise ma ogtahay in Sheekh Axmed Yaasiin uu ahaa sheekh curyaana oo lafta dhabarka ka jaban. ma ogtahay in bidaarta uu sababo khalkhal ku dhaca hormoon ama dheecaan ay raggu leeyihiin oo loo yaqaan testosterone waana sababta ay ragga oo qura bidaarta u yeeshaan ee aanay dumarku u yeelan. ma ogtahay in Xaawo Taako ay ahayd gabadh xorriyadda dalkeena u dhimatay taariikhduna ay aad u xustay. ma ogtahay in ayax-badeedku uu yahay xayawaanka kaliya ee madaxiisa ku leh wadnihiisa. ma ogtahay in qofku marka uu hindhiso uu joojismo wadnihiisu sidaas daraaddeedna uu nabigeenu sallallahu calayhi wasallam u yidhi dhaha alxamdulillaah. ma ogtahay in afkeena Soomaaliga uu ka mid yahay saddexda luuqadood ee ugu hodansan adduunka. ma ogtahay in jabhaddii ugu horreysay ee Afrikaana ee dagaal hubaysan kala hor timid gumaysiga reer Yurubka ay ahayd daraawiishtii Sayid Maxamed Cabdulla Xasan. ma ogtahay in xayawaanka jarjarooluhu uu carabkiisu laba jibaar ka weyn yahay jidhkiisa. ma ogtahay inuu qofku maalintii neefsado 23,000 oo jeer.